Odayaal waxgarad ka soo jeeda tuulada Xawaadle ee hoos timaada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay cabasho xooggan ka muujiyeen iskuul ay caruurtooda wax ay ku baranayeen oo ku yaalay deegaanka Xawaadle in ay degtay askarta ka arimaneysay tuulada Xawaadle. waxa ayna odayaashaasi ka codsadeen dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe in laga raro askartaasi si ay caruurtooda uga sii wataan waxbarashadooda iskuulkaasi. odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in haatan caruurtooda ay haysato iskuul la'aan ay guriga ay iska fafadhiyaan. waxa ayna sheegeen in ay ku dhacday mustaqbal xumo. waxa ayna ka warbixiyeen xaaladooda. xogeeyaha beesha Xawaadle waxaan dawladda dhexe ka codsanaynaa Hirshabeelle ka codsanaynaa gobolka Shabeellaha Dhexe ka codsanaynaa degmada Balcad ka codsanaynaa intii hay'ad ka codsanaynaa in nala garab siiyo. awalan iskuul wax barasho la'aan ayaa dhalinyarada ay naga qabatay caruurta wax barasho la'aan. alxamdulillah waxaana loo sameeyay iskuul oo rasmi ah oo yani dhowr qol ka tirsan ayaa loo sameeyay. laakiin waxay hadda dhacday dadka nabadgelyada ahaa ayaa iskoolkii dhex degay meel hooy ay degaan ay waayeen. dadkana waa bini aadan inay meel hooy helaan oo ayaga ay ku bedelaan saas waa wax meesha jira. haddii ay hooy waayaan mala horaayo inay meesha madaxa ay gastaan ilaan waa bini aadan. waxaan rabnaa nabadgelyadii in meel loo helo oo lagu wareejiyo. haddii meel loo helo lagu wareejiyo waxa waaye iskoolka si toos ah weey. hadda dhalinyaradii ardadii oo kala galaas ahayd meel ay wax ku dhigata male. ardo iyo ciidanna meel isla ma degi karaan waa mamnuuc. waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka annaga aan qabna inta ay la eg yihiin meeshii daldaloolo oo markaa aan leenahay in nagala daboolo. marka ugu horeysa waa siduu xogayaa u sheegay waatuu ka hadlay macnaha ardayda iyo ciidamada inaanay kala saareen meeshii iskuulka oo naloo dhisay ciidan ayaa hadda degan. waxaan jecelnahay oo dowladda dhexe ama dowladda Hirshabeelle ka codsanaynaa in macnaha nalooga saar ciidamada oo meel loo yeelo macnaha sidii ardayda ay wax ugu barato. waxaan rabnaa sida ay sheegeen run waaye anunka waxaan ka liidinaa xagga waxbarashadaan ka liidinaa. waa nolol is runtooda waaye iskool waa nolol dhisay ha nolol dhisay laakiin ardadii kuma jirto. waxaana qabtay ciidankiya iskoolkayni galay raalli aan ognahay intaan geeyna marka anunka waxaan u baahanahay dawladda waxaan ka codsahaynaa oo Hirshabeelle iyo dawladda dhexeba waxaan ka codsahaynaa si degdeg in ciidankii iyo ardadii loo kala bixiyo oo si degdeg la kala wareejiyo saldhig iskool loo dhiso. waxaan rabnaa oo kale sidii sheegayeen run waaye hubiga biyaha haysa managa xirna maxadidna sidii joohor oo kale gaawga hubiga ilaa intii حد لأنه عليو للتوسيو دad وينهن waxay u baahan yihiin kaalmo oo xoog leh oo beeraleyda ah. waxay rabaan abuuraal rabaa cagaf yaal rabaa kaalmo oo garab qabad rabaa kanaalyaalkii naga duugmeen ilaa waagi siyaad ilaa duugmeen cid fargiis ma waxaan u baahanahay kanaalyaalkii waa in loo furo. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Alfa warbaahinta Juba Shabeelle News magaalada Jowhar.